kusoo saaxiibayaal mar kale waxaa idin la wadaagi doonaa diyaaradda Akanji lagu magacaabo oo muddo ku siman 3 maalmood ka howlgalaysa Soomaaliya ayaa waxa ay fulisay duqeymo dhowr ah. Duqeymaha ayaa Akanji waxay ka fulisay deegaano ay ka mid yihiin gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Shalay ayay ahayd markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ku soo qaadeen deegaanka Siib halkaas oo Fariisin ay ku lahaayeen ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed. Balse dagaalka kadib Al-Shabaab ayaa dagaalyahanno ka tirsan waxay gudaha u galeen xerada ciidanka Siib ee ku lahaayeen ciidanka dawladda. Kadib diyaaradda Akanji ayaa halkaas waxay ka fulisay duqeymo halis ah. duqeymaas ayaa lagu soo waramayaa in kooxda Al-Shabaab loogu dilay dagaalyahanno ka tirsan kooxda iyo horjoogyaal la socday dagaalyahanada soo weeraray xerada. sidoo kale diyaaraddan waxay duqeymo ka fulisay gobolka Shabeellaha Dhexe sida Buurta Shiiq iyo Soomaaliya. duqeyntan diyaaradda Akanji ay ka fulinayso gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ayaa imaanaysa kadib markii dowladda Soomaaliya ay la wareegtay diyaaradda Akanji 2 maalin ka hor. diyaaradda Akanji duqeymaha ay xoojinayso ayaa imaanaya maalmo kadib markuu madaxweynaha Soomaaliya uu bilaabay in uu dib ugu laabto fariimaha dagaalka. duqeymaha diyaaradda Akanji ee fulisay ayaa waxa ay yihiin duqeymo aad u culus kuwaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan iyo horjoogyaal kooxda Al-Shabaab. sida ay shaacisay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigtay dagaalyahanno iyo horjoogyaal kooxda loogu dilay gobolada Shabeellooyinka Dhexe iyo Shabeellooyinka Hoose. sida ay noo xaqiijiyeen ilaa dhinaca amniga ah ayaa sidoo kale waxay sheegeen in gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda Al-Shabaab loogu dilay horjoogii u qaabilsanaa madaxa qaraxyada iyo howlgelinta fariismaha ciidanka dawladda ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. tan ayaa u muuqata in ay tahay guul taariikhi ah oo ay gaarayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka oo iyagu u istaagay in ay iska xoreeyaan kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa laga saaray deegaano badan iyo degmooyin badan. sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose intooda badan hore ayaa looga saaray balse dhawaanahan ayaa Al-Shabaab bilowday in weerar gaadmaha ay ku soo qaado gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. duqeyntan diyaaradda Akanji ayaa noqonaysa duqeyntii abid ugu cusleed ee kooxda Al-Shabaab lagu beegsado maadaama diyaaraddan ay Soomaaliya ama guud ahaanba Soomaaliya ay ka howlgalayso wax ku siman 3 maalmood. duqeynta diyaaradda Akanji ay fulisay ayaa waxa lagu dilay ku dhawaad 120 ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isugu jira dagaalyahanno iyo horjoogyaal. sidoo kale diyaaradda Akanji ayaa ka qayb qaadatay duqeyntii ka dhacday gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan Jilib iyo Jamaame. degmada Jilib kooxda Al-Shabaab jaamacad ay ku shirayeen ayay duqeyn la beegsay diyaaradda Akanji halkaas oo kooxda Al-Shabaab loogu dilay dagaalyahanno iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. duqeynta degmada Jilib laga fuliyay ayaa Al-Shabaab waxa lagu gaarsiiyay khasaaro aad u badan. duqeyntaas ayaana Al-Shabaab ku noqotay dhabarjab. duqeynta diyaaraddan maalmaha ku siman ee Soomaaliya joogtay Akanji ayaa dhiirigelin u noqonaysa ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoog dalka oo ka howlgalaya gobolka Shabeellaha Dhexe. gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxaa ku siman taliyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed Janaal Odwa iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shoote ayaa mar uu hadlayay sheegay in kooxda Al-Shabaab uu isaga ka waayay Muqdisho balse lugihiisa uu ku raadsaday oo ugu daba tagay gobolka Shabeellaha Dhexe isagoona diyaar u ah in kooxda Al-Shabaab meel kasto ay tagaan uu ka daba tago god walba ay galaan uu ka daba galo. madaxweynaha ayaa maalmo ka hor taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda sare Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shoote ku booqday degmada Aadan Yabaal halkaas oo iyaga ay u joogaan dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. gudoomiyaha iyo taliyaha ayaa dhawaan ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoog dalka Soomaaliyeed kula hadlay fagaaro ku yaala degmada Aadan Yabaal halkaas oo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin fariisam aad u weyn. si kastaba guud ahaan Soomaaliya waxaa ka socda dagaal looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab waxaana la rajeynayaa muddo ku siman bilooyin in lagu soo afjaro kooxda Al-Shabaab lagana xoreeyo guud ahaan Soomaaliya. ciidanka xoog dalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa diyaar u ah haatan god walba ay galaan in kooxda Al-Shabaab ay ka daba galaan kana saaraan deegaanada ay ka joogaan ama ay kaga sugu yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Shabeellaha Hoose ma lahan ciidamo dadka deegaanka oo ka howlgala balse waxaa la rajeynayaa in dhawaan lagu dhawaaqo ciidamo dadka deegaanka oo halkaas kala dagaalama kooxda Al-Shabaab si ay isaga xoreeyaan kooxda Al-Shabaab.
al-shabaab ayaa dadka xoolo dhaqatada ku sugan gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe sanad kasta ama bil kastaba ka qaada sako waxay ugu yeeraan sakawaad